goorsheegtada xilliga Muqdisho waxa ay dul taagan tahay 4:35 daqiiqo. waxaan safar muddo kooban qaadanaya ku gaarnay beerta dalxiiska ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir. waa maalinkii labaad ee Ciidul Adha, waxa iska yar suurtagalnimada aynu xog uga heli karno goobtan maalinka koowaad ee ciida, saxmadda iyo tirada dalxiisayaasha oo aad u badan awgeed. doogan ka dhashay biyaha roobka ee Daynile waxa uu martigelinayaa boqolaal dalxiisayaal ah oo ka kala yimid degmooyinka iyo duleedka Muqdisho. dhanka kale, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa xiise u sii yeelaya goobtan dalxiiska. waa kan mid ka mid ah dadka ciyaartan oo inoo sharaxi doona magacyadeeda. magacayga yahay Maandaq Cabdullaahi Ibraahin. waxaan halkan ka salaamayaa bahda Banaadir, hooyaday iyo aabahay, walaalkay Cabaas Cabdullaahi Ibraahin, walaalkay Cabdiqaadir Adeec Maxamuud. waxaan halkan ka salaamayaa walaalkay Suldaan Saraar Guhaad, walaalahay habartay Faadimo Axmed Cali Sow, habartay Xaliim Axmed Cali Sow, abtigay Ismaan Axmed Cali Sow, iyo ayeeyaday iyo adeerkay Cabdirasaaq Jimcaale. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin inta magaalada Muqdisho ku nool. meeshaan waa meel jawi macaan, waa meel jawi degan, ka soo qayb galaa leeyahay. qofkaan ogeyn hadda ha ogaado, qofkii ogaayna waa lagu soo dhaweynaa. dhanka kale, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa xiise u sii yeelaya goobtan dalxiiska. waa kan mid ka mid ah dadka ciyaartan oo inoo sharaxi doona magacyadeeda. horeen magacaygu waa Cabdiraxmaan Suudi Maxamed. waxaan leeyahay muslimiinta meel walba ay joogaan ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr, taqabbal Allahu minna wa minkum, ciid mubaarak calayna wa calaykum ayaa leeyahay. maanta waa maalinta labaad Ciidul Adha. waxaan ku suganahay beerta dalxiiska ee degmada Daynile. ayaan u soo dalxiis tagay sida aan waqti ula qaato asxaabteyda iyo waalidkayga iyo walaalahayga. waa meel aad u qurux badan oo waxaa ku sugan dhammaan dadweyne kala duwan oo kala yimid gobolka Banaadir. waxaa ka muuqdo dadka dhan farxad iyagoo isku hambalyeynayaan in ciidan kale Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaarsiiyo. sidoo kale dadku waxaad arkaysaa iyagoo isku hambalyeynayo oo farxad isla wadaagayo oo hambalyo isla yihiin. waxaan ka soo tagay degmada Hodan ilaa aan ka soo gaarayay degmada Daynile beerta dalxiiska. waxaan arkayay inta wadada ku soo socda dadweyne aad u fara badan oo ku soo wajahan beerta weyn ee degmada Daynile oo ah meel ka duwan ciidii hore. sababtoo ah sanadihii hore waxaa la ciidi jiray Daarusalaam iyo beerta Banaadir, balse dadku inta badan waxay xiiseeyaan dooga quruxda badan ee degmada Daynile oo fur gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Jacfar. waxaa leeyahay hambalyo. si kastaba ha noqotee, waa sanadkii ugu horreeyey ee Ciidul Adha ee lagu ciido goobtan doogale ee ka dhisan Daynile, waxaana dadka Muqdisho ay kuu sheegayaan in sanad walba ay u soo dalxiisi doonaan.